kani waa WhatsApp aad aamini karin inuu jiro. Shirkadda Google-na waxay ka mamnuucday inaad ka soo heshid Play Store-ka. Waxaad garan ogtaa WhatsApp GB Business ama Messenger. Kani waa WhatsApp Modern Version. waxa uu leeyahay features aysan lahayn dhammaan noocyada kala duwan ee WhatsApp-ka. Interface-kiisu waxa uu u muuqdaa sidan. Fariinta lagu soo diray ama aad diraysid waxa ku samayn kartaa translation luqad kasta oo u baahan tahay. adigoo kaliya fariinta gujinaya kadibna dooranaya translate. Sidoo kale haddii aad dooratid saddexdan falaarood ee hoos u jeeda TM Modes, halkan waxaa ku arki doontaa options aad iyo aad u fara badan. haddii aan dooranno privacy settingskiisa, waxaad fariisi ku samayn kartaa waqtigii kuugu dambeeyay WhatsApp-ka. waxaad qarin kartaa waqtigii kuugu dambeeyay WhatsApp-ka iyo weliba online-kaaga. sidoo kaleeto waxaad fiirsan kartaa statuska qof kasta isagoo aan qofkaasi ku ogaanin. si la mid ah qof kasta oo statuskiisa iska dhaliida adiga dhankaaga kama dhaliidmi doono. waxaad ka fikiraysaa ama aad isweydiinaysaa oo featureskan WhatsApp GB-gaba waa uu leeyahay. haddaba ogsoonow, hadda waxaan kuu sheegi doonaa qaar ka mida featureska aysan lahayn dhammaan noocyada kale ee WhatsApp-ka laakiin uu leeyahay WhatsApp Modern Version-kan. tusaale, waxaad iska xadidi kartaa ama iska balogarayn kartaa dhammaan kooliska ku soo wacay ama qof gaara kooliskiisa. sidoo kaleeto waxaad diidi kartaa inay blue tick saarmato markii fariintiisa aad fiirisid qof gaara ama dadka oo dhan. fariimaaga waxaa ka dhigi kartaa kuwo si automatic isku diraya. tusaale, qof haddii uu kuu soo diro assalaamu calaykum, isaga ayaa u jawaabaya, see tahay isagaa u jawaabaya, iyo features kale oo aad iyo aad u fara badan. waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidid.